habeen wanaagsan kuna soo dhawaada warka habeen ee idaacadda kulmiye qodobadana waxa ugu waaweyn mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Howlwadaag oo lagu dilay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo weerar iyo duqeymo maanta ka kala dhacay Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe odayaal kulan ku yeeshay Muqdisho oo ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedka ka taagan Shabeellaha Dhexe madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo sheegay inay kala dhexgalayaan beelaha ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan maamulkaasi booliska Kenya oo helay xogta ninkii isku qarxiyay Nairobi kuna raad jooga haweeney keedisay hubkii lagu weeraray Nairobi iyo koox ka ciyaartay Ingiriiska oo garoonkeeda qayb ka siisay dad darbi jiif ahaa Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad waa sabti ay axad soo galayso taariikhduna ku aastaysan tahay 19ka bisha koowaad ee January 2019 caawana waxa warka la diyaar Ahmed Maxamed Ibrahim maasanad Cabduqani Cabdullaahi Ibrahim bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warka oo dhan rag bistoolada ku hubeysan ayaa maanta waxay laba ruux ay ku dileen gudaha suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho dilka ayaa ka dhacay afaafka hore ee suuqa daawada ee gudaha Bakaaraha ee magaalada Muqdisho labada ruux ee la dilay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen gudoomiye laameed ee hoostaga waaxda Xawataako ee degmada Howlwadaag sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Howlwadaag kooxihii ka dambeeyay dilka ayaa goobta iskaga baxsaday durban halkaasi waxaa gaaray ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya iyagoona baaritaano ka sameeyay halkaasi mana jirto ilaa haatan dilka dhacay cid loo soo qabtay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar iyo duqeymo maanta ka kala dhacay gobolada Jubbooyinka Yunus Duraan Cali ayaa warka faahfaahintiisa inoo haya warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa baahisay in ciidamada xoogga Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay duqeymo ka fuliyeen degmada Bu'aale oo ah caasimadda gobolka Jubbada Dhexe duqeynta ayaa la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan shabaab iyo wariyaal u shaqeynaya shabaab Generaal Cali Maxamed Maxamuud Bagmadu oo ah taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda ciidamada ayaa sheegay in ciidamada xoogga iyo kuwa Mareykanka ay weerar duqeynaya mid dagaal ka fuliyeen gudaha degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe sidoo kale Generaal Bagmadu ayaa waxa uu sheegay in weerarka uu si gaar ah kaga dhacay xarunta idaacadda Andalus oo ku hadasha afka shabaab taliyaha ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 15 xubnood oo ka tirsan shabaab iyo 4 wariyaasha shabaab ah isla markaana qalabkii idaacadda Andalus lagu burburiyay weerarka duqeynta iyo dagaalka iskugu jiray sida uu hadalka u dhigay saraakiisha militariga ma sheegin magacyada wariyaasha iyo dagaalamayaasha shabaab looga dilay duqeynta ka dhacday degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe dhinaca kale warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal saaka aroortii al-shabaab ay kula jirmaadeen saldhig militari oo ku yaala deegaanka Baarsanguuri weerarka shabaab ay ku qaadeen saldhigga ayaa waxa uu ku biloomay qaraxyo iyadoona intaasi kadib al-shabaab ay dagaal toos ah la galeen ciidamada militariga Soomaaliya ee saldhigga la weeraray ku sugnaa dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka iyo qaraxyada ka dhacay deegaanka Baarsanguuri oo dhaca duleedka degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose gaashaan la dhexe Xasan Aadan Ciraaqi taliyaha ciidanka danab ee qaybta Jubbaland ayaa ka warbixinaya qasaaraha ka dhashay dagaalka saaka ka dhacay deegaanka Baarsanguuri ee gobolka Jubbada Hoose ilaa meesha la yiraahdo waxa weeyaan araare ilaa koban intaas oo dhan bay ciidamadu waxay cayrsanayeen nimankii cadawga ahaa ee soo weeraray xerada Baarsanguuri runtii waxa weeyaan nimanka cadawga jab iyo halaag baa halka ka soo gaaray waxaanu anagu maanta aan ku guuleysanay inaanu cadow baabi'ino 75 cadawga ka tirsan oo al-shabaab yaani maanta waxa weeyaan dhimashadooda ummadda Soomaaliyeed una soo bandhigaynaa una cadaynaynaa waxa weeyaan dhaawacuna intaa uu ka sii badan yahay ilaa waxa weeyaan ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada caalamiga ah waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed caawinaya ilaa meesha ugu dambaysa ee ka guuleysanayna ka hadhmayno waxa weey waajibaadka waxa weeyaan madaxweynayaasha Soomaaliya ay nafareen baana waxay ku astaysan tahay inaanu la dagaalano cadawga ummadda Soomaaliyeed ka hadhmayno meel kasta oo ay tagaan jilibaan ku galaynaa kabsuumaan ku galaynaa waxaanu meel walba ku galaynaa ciidamada waxa weeyaan Soomaaliyeed hambalyo guulaha aad maanta gaadheen odayaal maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa baaq u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dadkii ku dhaawacmay maanta Muqdisho qaar ka mid ah loo soo qaaday Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warka faahfaahintiisa inoo haya
xilli uu sii xoogaysanayo dagaalbeeleedka ka socda deegaanada ceelbaraf iyo ceeldheere ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa maanta kulan ka yeeshay dagaalbeeleedkaasi odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada uu dagaalka ka socda iyagoona ku baaqay in dagaalkaasi si degdega loo joojiyo sidoo kale odayaasha ayaa waxay dowladda soomaaliya ugu baaqeen in si degdeg ay u soo farageliso dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan waa kuwan qaar ka mid ah odayaashaasi oo la hadlay warbaahinta in laga qabto waxay yihiin dhibaatooyin soo laalaabtay oo yacni maaragtay ishugsan iyadoo la leeyahay waxaa lala diriraa cadow oo waxaa lala diriraa shabaab dadka la dilay 24 saac waa beeraley waa xoololey waa dad xoolo dhaqataa oo deegaankaas degan waxaa waaye waxaan leenahay idana waxaad u howlgeliseen ma ahan inaad beelay walaalaa yacni maaragtay isu hubaysiinna uma joogtiin waxaad u joogtiin nabad ilaalin waay sidaasaan aad ugu baaqaynaa arrimankaas dowladda federaalka oo soomaaliya aan u sheegaynaa inay faragelin ay u yeelato maxaa jira dalka iyadaa xukunta goboleedkana iyadaa xukunta ciidamanka amisoonna iyadaa tacaamul lala oo dalka wax laga weydiiyaa dowladda soomaaliya waxaan u sheegaynaa marka arrintaas inay faragelin dheer ku yeelato laakiin waxaan leenahay colaadda diris anfici mayso waxaan leenahay marka dowladda dhexe arrintaas go'aan ha ka qaadato kulanka odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada ceelbaraf iyo ceeldheere islamarkaana uu dagaalbeeleedka ka socda ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maanta magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey dad ku soo dhaawacmay dagaalbeeleedka ka socda deegaanada ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali guudlaabe ayaa sheegay inay kala dhex galayaan beelo ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe madaxweynuhu ayaa markii dambe beelaha dirirta u dhexaysa u diray baaqnabadeeda yuusuf abubakar ibraahim ayaa warkaan faahfaahintiisa jowhar inooga soo diray markii ugu horreysay madaxweyne xigeenka maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa ka hadlay colaad beeleedyada ka soo cusboonaaday qaybo ka mid a deegaamada hirshabeelle kadib markii uu soo gaaray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle oo uu ka maqnaa muddooyinkan madaxweyne xigeenka ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadaha taa beddelkeedana beelaha wax kala tabanaya ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka waxaan rabaa halkan inaan uga baaqo ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanada dhowrka waxaan leenahay walaalayaalow laba khasaare ayaa ku jirta inaad walaalkaa disho maanta garabkaagaad ku weyhaysaa birrina waxaa kaa horraysa su'aala walaalkaa maxaad ku dishaa imaanayso waxaan ugu baaqaynaa si shuruud la'aana in lagu joojiyo colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanada hirshabeelle waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhimaaya mahana wiil ku dhalamaaye ha la joojiyo walaxaan adduunya aakhira beelaynoo laga dheefaayana ma jiraane dagaalladaas ha la joojiyo wixii la kala tabaayana waxaan leenahay miis wada hadal ha la isugu yimaado haddii aan nahay mas-uuliyiinta hirshabeellena waxaa naga go'an xoog iyo xoolo waxaan hayno inaan ma aragtaya dadkaas walaalaha ahay dhiiggooda ku daadanayo xaqdarrada inaan ku kala badbaadinno waxaa naga go'an wakhti waliba inaan u taagnaanno dadkaas sidaan ku kala badbaadi lahayn walaalaha ah iyagana waxaan rajaynaynaa inay u dheganuglaa doonaan baaqayna sababtoo ah walaxaan khasaare ahayn oo ka imaanaya ma jirto inaad walaalkaa disho asna maalinku dilo birrina waa maantana waa u baahnaanaysaa oo waa garabkaagii oo go'ay birrina su'aalaa kaa horraysee waxaan leenahay dagaalkaas shuruud la'aan ha la joojiyo aad iyo aadaad u mahadsantihiin deegaano badan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle waxaa xilligan ka taagan colaado u dhexeeya beelo ood wadaaga mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaana lagu dhaliilay inaysan u istaagin daminta colaado ka jira qaybo ka mid a gobolkan shabeellaha dhexe si gaar ah tuulooyin ku dhow deegaanka ceelbaraf oo muddooyinkanba xiisad colaadeed oo beela halkaa wadadega u dhexaysay ay ka jirtay yuusuf abubakar kenen shabeellaha dhexe booliiska kenya ayaa helay xogta ninkii isku qarxiyey magaalada nairobi ee dalka kenya islamarkaana waxay ku raajoogaan haweeney keedisay hubka lagu weeraray hotelka dct d2 ee nairobi ku yaala cabdulaahi maxamed cali ayaa warka faahfaahintiisa inoo haya warbaahinta kenya ayaa waxa ay shaaciyeen magaca haweeney ciidanka amnigu ay ku eedeeyeen inay soomaaliya ka qaaday hubkii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku weerareen hotel ku yaala magaalada nairobi talaadadii aynu ka soo gudubnay saraakiil ka tirsan qaybta argixisada dirarka ee booliiska kenya ayaa waxa ay ku guuldaraysteen in maryan cabdi ay ka soo xiraan ceeldooreed koox kalena waxaa loo diray magaalada milindi welina macadda inay soo xireen iyo in kale sida uu ku waramay the standard maryama waxaa la sheegay inay ka soo jeedo deegaanka bundini ee bambaaso hoostaga waxayna isku xir muhiim ah u sameysay qorsheeyayaasha weerarka iyo kuwii fuliyey oo la ogaaday inay ka tirsanaayeen amniyaadka al-shabaab sida uu qoray wargeyska the standard dhinaca kalena waxaa markii ugu horreysay
laamaha amniga ee kenya ay ogaadeen aqoonsiga ninkii isku qarxiyey hotel ay al-shabaab weerar ku qaadeen kaas oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimadu ah dalka kenya wuxuu ahaa 25 jir lagu magacaabi jiray maahir khaalid risiki wuxuuna ka soo jeedaa tuulo hoos tagta Mombasa. boolisku waxa ay sheegeen in maahir khaalid al-shabaab uu ku biiray markii uu masaajid kula kulmay Ramadaan Xasiini Kufunwa oo hadda ku sugan Soomaaliya kana barbar dagaalama al-shabaab. dalka Kenya wali waxa ka socda baaritaanka weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi kaasi ay ku dhinteen 22 ruux tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. baaritaanka waxa qayb ka qaadanaya hay'ado caalami ah. jimcihii shalay ayaa waxaa maxkamadda la soo taagay 5 qof oo lagu eedeeyay inay xiriir la lahaayeen raggii weerarka fuliyay. dhegeystayaal warkaabeenu wuxuu ka imaanayaa shabakadda wararka ee kulmiye. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono. kooxda Crystal Palace ee ka dhashay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa qayb ka mid ah garoonkeeda Selhurst Park hoy uga dhigtay dadka darbajiifka ahi iyadoo loo saadaalinayo dhawaan uu qabow daran ka dilaaco dalka Britain ayaa kooxdan waxay hadda bilowday ilaa 10 qof oo darbajiif ahi ay ku hoydaan garoonkeeda. dadkaasi ayaa sidoo kale waxay heli doonaan cuno iyo meelo ay isku nadiifiyaan sida uu sheegay golaha deegaanka ee Croydon ay kooxda ka caawiyay arrinkan. 8 qof oo darbajiif ahi ayaa habeenka Khamiista lagu bilaabay hoygaasi waxaana ay ku seexdeen sariiraha safarka loo qaato. madaxa fulinta ee kooxda Crystal Palace Philip Alexandro ayaa sheegay inay doonayaan in kooxda ay wax u tarto bulshada ay la degan tahay. dhegeystayaal warkaabeenu idinkaga imaanaya shabakadda wararka kulmiye caawana inta cidda uu sheegay waxay dib ugu heli karaan barta internetka ku leenahay radio.kulmiye.net. dhegeystayaasheena galkacay joog radio hayaan ayay ka heli karaan. dhegeystayaasheena cadaada jooga cadaada ayay ka dhegeysan karaan. dhegeystayaasheena beledweyne joogana radio wadin ayay ka heli karaan. halka dhegeystayaasheena Mareykanka ku sugan radio kala FM ay ka dhegeysan karaan. warkan warka xiga amaana Allah.